wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarumo badan oo ay ka howlgasho hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Bushra ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe iyo madax kale ayaa kormeer ku tagay xarumaha ay ka howlgalaan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ee magaalada Muqdisho. wasiirka iyo madaxdii kale ee la socotay waxay booqdeen goobaha laga soo dego iyo kuwa laga baxo ee garoonka aadan cadde, waaxda ajaanibta iyo fiisooyinka, waaxda jinsiyadda iyo xarunta ugu weyn ee laga bixiyo adeega baasaboorka Soomaaliya ee degmada Hodan. kormeerkaasi oo ay sidoo kale ka qayb galeen wasiiru dowlaha amniga gudaha mudane Maxamed Cali Xagaa iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane Isaaq Maxamed Maxamuud. waxaa xarumahaasi ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. wasiirka amniga gudaha mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali ayaa bogaadiyay shaqada baaxadda leh ee hay'addu ka hayso gudaha dalka iyo dibadda, wuxuuna cadeeyay in si wadajir ah looga shaqeyn doono xalinta caqabadaha jira, isagoo dhinaca kale kula dardaarmay in lala yimaado qorshayaal istiraatiiji ah oo ka qayb qaadan kara horumarka dalka.